بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين maanta waxaan rabnaa inaan halkan ku duubno video aan uga hadlano qaabka Google Form loogu diyaariyo questionnaire insha Allah waxaan soo kacsanaynaa Google-keena markaan rabno inaan Google Form aan ku diyaariyo questionnaire marka koowaad waa inaan Gmail-keena uu ku xiran yahay Google-ka markaas waxaad samayn kartaa in aad questionnaire diyaarisid adoo adeegsanaya Google Form marka laba qaab baa Google Form kula soo bixi kartaa mid waxa weeye inaad meeshaas afarta dhibcood ama dhibcahaas aad tagtid hoos u wadid kadibna aad soo dooratid forms aad soo dooratid iyo inaad halkaa ku qortid Google Forms aad ku qortid kadib markaa ku qortid halkan ka raadisid maxaa la oran jiray Google Form تقريبا هذا هو كم بافليا أنا أساس كسر أساس صباحه إيوه محل أورنجري إنا سميسيد تي كلام كوشنا إنا جوجل أبس كانت تكتب كسو دورتي فورمز وسيم وي سكمل بعتك مركا أنت كوسو فرمته waxaad tagaysaa start new form meesha aad ku qoran tahay baad tagaysaa insha Allah questionnaire-keena marka koobaad waa kan halkaas nagu diyaarsan yahay questionnaire-kaas noo diyaarsan baa rabnaa inaan Google Form u soo bedelo insha Allah inaan Google Form ka dhignaa rabnaa questionnaire-ka safxadiisa koowaad waa kaas wuxuu ku saabsan yahay research-kaas la yiraahdo baarista caqabadaha waxqabadka waxbarasho ee Soomaaliya yani caqabadahaas ama research-kaas questionnaire-kiisi weeye marka insha Allah halkaas maxaa la oran jiray new form baa oranaa ama start new form waa ku dhufanaa marka start new form niraahno waxa halkaas ku qoranaa research-keena ciwaankiis ama questionnaire-keena ama topic aan ka hadlano baa halka ku qoranaa hadda wuxuu ku saabsan yahay baarista caqabadaha waxqabadka waxbarasho ee Soomaaliya halkaas aan isla sahan haysta caqabadaha haysta waxqabadka waxbarasho in waxbarashada wax laga qabto ilmina waa ciwaanka xaggaas research ku qorsa halkaasna click baa siinaysaa marka ciwaankan qortid halka hadda click siisid yani formkaagana magaca ciwaanku bixinaya marka waxaan rabnaa inaan description-ka aan ka bixino description-ku waa maxay waa intaan research-ka meesha ka sameynaysid institute-ka ka sameynaysid ama jaamacadda ka sameynaysid intaas weeye haddana maxaa noo qoran Demo for Education and Research Institute waaxda waxbarashada qaybta tababarada qalabka cilmi baarista waa su'aalaha waxa weeye waa research instrument questionnaire weeye waxaan adeegsanayno marka halkaas ayadana ku qoranaysaa meesha description-ka waxa ku buuxinaysaa oo waxa la yiraahdo macluumaadka la xiriira xog ururintaadan ama questionnaire-kaagan intaa markaa ku qortid Allah musta'an Allah musfoon sitika inta aanu gaarin intaas waa inta ugu horeysay oo hordhac u noqon lahayd maxaa la oran jiray research-kaaga ama questionnaire-kaaga waa mawduuca ciwaankiisa maxaa la oran jiray macadka ama maxaa la jaamacadda ama institute-ka markaa ka socotid magaciisa kuliyadiisa iyo department-ka aad ka tahay kadib markaa halkaas waxa ku qoraysaa waxa la yiraahdo waxa ciwaanka waxaan adeegsanaysaa marka waa maxay waa research instrument oo ah questionnaire marka tan waxa la dhahaa declaration ama maxaa la oran jiray waxa la dhahaa ilaalinta xogta privacy of the data collection kan hadda sameeyna privacy-geeda weeye marka privacy-geeda waa maxay xogtan waxaan iraahnay xogtan
xog ururintan waxaan u adeegsan doonaa oo keliya in aan helo macluumaad aan u isticmaali karno daraasad cilmi baariseed daraasadda cilmi baariseed anagoo ah dhamme institute ama anigoo ah dhamme institute anigoo ah marka qofka magaciisa xagga ku qoraya hebel hebel wax ka baxsan uma isticmaali doono yani xog ururintan privacygeeda ama inay ilaasan tahay baa ku cadaynaysa xaggaas ay tahay mid keliya cilmi baaris ah u isticmaali doontid aad u isticmaali karin xogo kale xiriirkaaga ama contactskaaga halkaas ku qorsa oo magacaaga mobilkaaga emailkaaga maxaa la oran jiray cadaynta xogta dadka xogta akar tan waa maxay waxa cadaynaysa dadka xogta ka rabtay yihiin tusaale ahaan oo kale ana waxaan dadka aan karano waa aqoon-yahanada Soomaaliyeed barna inay soo bixiyaan meesha ay joogaan waxa waa meel kasta ay joogaan waa aqoon-yahan Soomaaliyeed meel kasta jooga ba xogtaas aan ka rabaanada Allah musta'an Allah masfuul marka waxaan rabnaa inaan u gudubno sectionkaas waa tagay sectionka labaad oo ah su'aalihii sectionka labaad waa maxay macluumaadka shakhsiyadeed personal information marka waxaan leenahay section cusub marka rabnaa section furano meeshaas tagana labada xariiqood waxaan leenahay sectionka labaad hadda noo furnay marka waa maxay macluumaadka shakhsiyadeed soo macluumaadka shakhsiyadeed macluumaadka shakhsiyadeed waxaan leenahay marka description ama xogaa optional waa ka tagi karnaa laakiin maxaan leenahay description baan raacinaa waxaan leenahay waxaan rabnaa in aan wax ka ogaano shakhsiyadda dadka aan xogta ka aroorsanayno intaa description yar iska raacinaysa marka maxaa leeyahay su-aasha koowaad maxay ahayd su-aasha koowaad waa sanadka dhalashada ama taariikhul miilaad ama date of birth waxaa leeyahay sanadka dhalashada marka halkaas maxaan ka dooranaa maadaama arno qofkan in uu taariikhda u dhasho noo soo qoro halkaas tagana waxaan leenahay dateku qofkaas soo gelinaya marka halkaas hadhow markuu su-aasha ka jawaabiyo su-aal kale markaan rabno inaan ku darsano iyadana waxaan tagnaa education su-aasha labaad maxay ahayd su-aasha labaad waxa weeye waa jinsiga waa maxaa la oran jiray jinsiga qofka jinsigiisa muxuu yahay jinsiga marka iyadu waxa weeye multiple question multiple choice baa ka wadnaa marka waxaan leenahay lab iyo dhadig buu kala dooran karaa sidoo kale waxaan rabnaa in uusan videogu uusan naga dheeraan marka xogaa waa soo koobanaa multiple question ku ah multiple choice ku ah xabadaas uga taganaa su-aasha kale inta tan ayada laftigeeda heerka waxbarasho multiple question tan kale waxaan la yiraahdaa intee in la eg ayaa wadda gudihiisa joogtay ama ku nooleed oo wax ka baranaysay iyadana waa multiple question weeye multiple choice weeye sorry su-aashan kale waa scale iyaduna maxay waa intee in la eg ayuu ka qayb qaatay caawinta waxbarashada maamulka aad ku dhex nooshahay ama ku dhex noolay intii wax baranaysay marka muddo yani su-aashan maxaa la xigta iyadana waa scale marka waxa weeye waa intee in la eg ayuu ka qayb qaatay marka waxaan leenahay scale linear scale baa leenahay marka maxaa weeye waa 1 ilaa 5 marka 1 ilaa 5 ku qiyaas intee in la eg marka waxaan leenahay 1 ilaa 5 iyadana saas uga taganaa okay hadhow qofku 1 ilaa 5 buu ku qiyaasaa marka saas u dooranayso saas ugu soo baxaysa hadhow su-aasha xigta waxa weeye nala wadaag sawir aad leedahay tanna waa maxay waxaan leenahay su-aasha markaa qorno education waa isla garanay halkan waxaa ka dooranaa wax la yiraahdo upload file marka upload file markaan nidhaahno wuxuu ku dhahay
let responder upload file to drive. marka faylka soo maadaama aan raacnay nala wadaag waxaan nala wadaag sawir aan leedahay baan soo ma marka sawirka waxaan rabnaa inaan ka dhigno sawir gaar wax gaar ah yani wuxuu xagga ku soo upload garay maadaama aan rafay upload file aan raacnay halkaas aan ku dhufanana marka waxaan leenahay image only noo soo upload garay wuxuu qofka noo soo upload gareyn karaa document soo upload gareyn karaa waxaan oran karnaa nala wadaag baasaboorka oo kala oran karnaa nala wadaag maxaa la oran jiray waxaan la yiraahdo video nala wadaag baa oran kartaa CV-gaaga nala wadaag oo kala oran kartaa waxaas oo dhan saxiix samee oo kala oran kartaa taas dooran marka maxaa leenahay kaliya anagu sawirkaaga nala wadaag way su'aasha marka sawir baa dooranana maximum fileska nala wadaagi karana haddii sawirro badan aan ka rabno oo kale halkan waxaan leenahay oo u doorana 10 sawir oo kale nala wadaag baa oranaa laakiin anagu maxaa leenahay hal sawir baa karana hal baa dooran sidoo kale size-ka faylka uu soo upload gareeyay xagga ka xadidana anagu hadda waxaan karnaa wax 1 MB ka maadaama uu sawir yahay wax 1 MB ka badan sawir 1 MB ka badan lama wadaagi karo qofkaas weey su'aasha xigta waxa weeye ayaduna maadooyinkee ayaa isleedahay aad ayaa loogu baahan yahay in laga taageero yani maadooyinka si loo tayeeyo waxbarashada maadooyinkee baa isleedahay aad baa loogu baahan yahay tan marka waxa weeye waxaa la yiraahdaa waxaa la yiraahdaa su'aashaas kale check box marka yani maadooyin badan waxa la rabaa in wax badan isla darto salahan kala waxa leenahay chemistry biology maxaa la oran jiray physics Somali English marka maxaa leenahay hadhow qofku markuu su'aasha dooranayo wuxuu dooranayaa marka salahan kale laba xab isla dooran karaa magarat marka waxa la yiraahdaa check box questions marka ayagana waa taas su'aasha xigta waxay ka hadlaysaa waxa la yiraahdo maamuladee su'aashan kale waa maamulada deegaanka Soomaalida ka jira midkee ugu waxbarasho fiican deegaanada Soomaalidu deegaanada degto maamulkeeba ugu waxbarasho fiican ayadana waxaan dooranaa waxa la yiraahdo drop down marka xaggan ku taxnaan deegaanada Soomaalidu degto halkaan ku saxnaa tusaale ahaan oo NFD Somali Kenya Jubaland Banaadir Hirshabelle Koonfur Galbeed Galmudug Puntland Somaliland Somali Galbeed Jabuuti marka deegaanadaas kee baa maxaa la oran jiray ugu waxbarasho fiican marka su'aashu ay tahay qofka hadhow waxa u soo baxaysa tusaale ahaan oo kale mid buu ka dooranayaa ayagoo yani liis ugu jira buu arkaya mid buu ka dooranayaa marka waxa soo hartay su'aasha xigta section kale xaggan ka bilaabanaya sectionkan waxa weeye asagana waa isla arki doonaa sectionkan waxaan leenahay section cusub baa bilaabana marka section cusub markaan rabnaa bilaabna xagee taganaa xariiqada taganaa section cusub section 3 waa noo bilowday marka section 3 wuxuu leeyahay heerka caawin ama ka qayb qaadashada dowladda Soomaaliya waxbarashada deegaanka ama maamulkaada yani deegaankaas aad joogtid dowladda Soomaaliya intee in leeg ay ka qayb qaadatay waa leenahay marka waxaa leenahay description baa raacin karnaa waxaa leenahay waxaan rabnaa in aan ogaano saameynta waxbarasho ee Soomaaliya ay ku leedahay
deegaankaada waa leenahay tusaalahan saas kala leenahay marka su-aalihii sectionkan ku daran su-aalihii sectionkan su-aasha koowaad maxay ahayd sidoo kalena waxaan kusii daranaa descriptionka yarka oo ah asagana qaabka su-aalaha uga sii jawaabay qofka uga jawaabay descriptionka muxuu leeyahay dhammaan su-aalaha soo socda waxaa looga jawaabayaa iyada oo la adeegsanayo heerarka soo socda iyadoo kuwan la adeegsanayo iyadoo la adeegsanayo yacni 1 2 3 4 5 adoo adeegsanaya baa ka jawaabaysaa marka maxay u taagan tahay aad u fiican 2 fiican 3 dhexdhexaad 4 aan fiicnayn 5 aad aan fiicnayn baa adeegsanaysaa marka su-aasha soo qaadana hadda su-aasha maxay leedahay su-aasha caddee heerka ku qanacsanaantaada caawimada adeega waxbarasho ee maamulkaagu bixiyo tusaale ahaan oo kale su-aashaas soo qaadana marka waxaan leenahay tusaale ahaan oo kale markaan rabno inaan heerarkaas ku cabirno waxaan qaadanaynaa multiple choice grade taasoo kale taasaa qaadanayna marka maxaan idhi caawimada tababaro waxbarasho halkaasaa ku guranaa tababaro waxbarasho caawimada agab waxbarasho 2 3 waa maxay waxbarasho caawinta tayeynta waxbarashada marka halkaan waxaan ka dooranaa columnkan kale maxaa ku qoranaa waxaan ku qoranaa 1 2 3 4 baa ku qoran marka inta ku qor su-aasha kale xigta marka saas inagu soo baxsa tusaale ahaan caawimada taageerada waxbarasho ma fiican tahay yani heerkii gaarin heer fiican miyaa heer aad u xun miyaa saad xagga saa uga dooranaysa hadda 5 baa ka tagnay 5na ku dar xagga 5 ku dar 5 aan aad u fiicnayn marka hadda qofku muxuu leeyahay tusaale ahaan kale tababarka waxbarasho aad uma fiicna tayeynta waxbarasho aad u fiican saasoo kale camal qofku u dooranaya su-aashan kale xigta waa maxay heerka iyaduna waa iyadoo kale marka waa maxay heerka ku qanacsanaanta caawimada ay bixiso la xiriira kuwan soo socda iyaduna waa tanoo kale marka waa ka tegaynaa maadaama tanoo kale ay tahay qaabkaas kale iyadana loo dhisan karaynaya su-aasha xigta sectionka saddexaad sectionkaana u gelinaa sectionkan isagoo muxuu ka hadlayaa taageerayaasha aad heshay intii aad wax baranaysay waa section marka sectionka halkaas asagana laga furtaa markaa rabto section cusub inaad furatid hore usoo aragnay marka sectionkan waa maxay waa taageerayaasha aad heshay yani intii aad wax baranaysay waxyaalihii lagaa taageeray marka descriptionka maxaa soo qaadananaa intaasa soo qaadananaa iyaduna waa faahfaahin yara oo ku saabsan su-aalahan soo socda marka waa maxay descriptionka muxuu noqonayaa dhammaan su-aalaha soo socda waxaa looga jawaabayaa iyada oo la adeegsanayo heerarka soo socda kow maxay u taagan tahay dowladda bulshada deegaanka iskoolka macadka intaas taageerayaasha ka hesha marka su-aasha koowaad maxay noqonaysaa su-aasha koowaad waxa weeye intii aad dhiganaysay su-aasha koowaad waa maxay intii aad dhiganaysay heerarka kala duwan ee waxbarashada dhinacyadan kee ama kuwee ayaad ka heshay taageero marka waa maxay intii aad dhiganaysay dugsi hoose dhexe dugsi sare jaamacad macad dugsi quraan dugsi hoose dhexe waxaan dooranaa horta marka koowaad
multiple tick box grade baa dooranaa marka maxaa leenahay dugsi sare dugsi hoose jaamacad معهد dugsi quraan marka maxaa leenahay halkan waxaa gelinayna kuwii korna loo kusoo sheegay oo ahaa 1 2 3 4 markaasaa u fiirina maxaa leenahay su-aashu saan kale qofka ugu soo baxaysaa intii aad diganaysay heerarka kala duwan waxbarashada dhinacyadee ama kuwee ayaad ka heshay taageero marka dugsi sare markuu dhiganayay tusaale ahaan oo kale kow dowladda u taagantahay أنا كركس الشيء كود دولة وتاجن تمر دكتور سر تلقاني دولة وكهلاي بلشة وكهلاي لا وتاجن كاس وكهلاي كان كمهلين مثلا دكتور صدق دولة كمهلين سكول كأما بلشة وكهلاي ساس كل بوقف تيجي صارية أنتوا وكهلاي مرة دكتور قرآن كنتوا تلقاني هذا دولة كنت كهلاي تيجي صارية ديك اللي أنتوا كهلاي وتيجي صارية سكشن كلا وجود بنا سكشن كانوا section ka afraad marka waan aqaan section marka doorana halkaan tagana section marka waxaa leenahay section kan waxaa leenahay xog dheeri ah oo qorxinaysa علمي بارستنا دارت description ير oo ku sii tarsan kartaa laakiin waa ka badan anagu marka su'aasha koowaad maxaa leedahay su'aasha koowaad waxay leedahay si fiican sawirkan si fiican u fiiri waxaana ka bixisaa aragtidaada waxa kaaga baxay ama aad ka fahantay su'aashaasna leedahay marka waxaan rabnaa inaan sawir soo gelino sawirka su-aashaan rabnaa inaan qof ka weydiino ama nolo ka jawaabo baan rabnaa inaan soo gelino marka maxaa leenahay waxaa leenahay xaggaas teganaa meeshaas add image ku qoran tahay sawirkii baa soo qaadanana waxaa leenahay browse tusaale ahaan oo kale kanoo kale soo qaadanana waxaan u sameynaynaa sawirka title yar oo sameyno kale دعاء القنوت بكساسن تن كحل لها الدعاء بالين بكساش هل كان أقدرنا هوستيس أد كويشن بالين هاي ساش حاجة صد يعني مركم حالنا ساش محيه سفي عن أفيري سفي صور كان سريع ما دام هذا سؤال ساش وكسر صور كسريع si fiican u fiiri waxaana ka bixisaa aragtidaada kaaga baxday ama aad ka fahantay marka maxaa leenahay short answer ba oran karnaa ama paragraph oran karnaa durna wax dheer bixiyo oo kale paragraph hadii kalena short answer ba oran karnaa taasaas ku baxay su'aasha xigta maxaa weeye ayaduna marka aad daawatid videoga nala wadaag fikradaada ku aadan videoga marka daawatid video rabnaa marka inaan soo gelino hadana maxaa leenahay video tagana waxaa soo qaadanana linkiga videoga u baahanaa tusaale kale youtube ka tagana linkigaana soo qaadanana waxaan dhiganaa halkaas baa copy paste ku orana bas videoga select orana halkaas uu noo soo gelaya videoga waxaa leenahay training magaca u bixinaa video kadibna su'aashii aan ka weydiin lahayn qofka add question barana su'aasha qofka aan weydiin lahayn la soo qaadanana basti barana wax leenahay ayana short answer oo jawaab leh marka maxaa xagga ku soo qaadanay noocyada kala duwan ee su'aalaha tusaale ahaan oo kale marka aan questionnaire-keena soo dhisnay oo aan page koowaad oo noo furmayay markuu maxaa la oran jiray qofka soo booqdo page koowaad u furmayay waa maxay oo xog buu ka siinayaa questionnaire-kana aragtina qofku kaaga soo jawaabo marka ciwaankii questionnaire-kaaga ama research-kaaga qofku
waa inuu arkaa marka meeshaas koowaad oo koraa ku qoranaa baarista caqabadaha haysta waxqabadka waxbarasho ee Soomaaliya 2003 ayadana insha Allah inaan 10 ka soo hadallo baa isku daynaa habka loo dhiso ciwaan cilmi baariseed qaabka loo dhiso ama qaabka loo sameeyo haddana maxaa ku xijinaysaa cover page-ka oo ah magaca jaamacadda ama macadka kulliyadda departmentiga kadibna maxaa ku xijinaysaa instrument research instrument baa ku xijinaysaa questionnaire kadibna privacy-ga ama ilaalinta xogtan arursanaysid baa ayadana macluumaad ku saabsan baa ku xijinaysaa kadibna meesha wax lagala soo xiriiri lahaa intaa markaa qortid su'aalahaaga u guda galaysaa waxaa ka bilaabaysaa personal information baa questionnaire kasta ugu horeeya personal information markaa dhaaftid sectionada kale markaa kugu xigay research-kaaga baa ayagana qoraysaa markaa rabtid section inaa abuurtid halkaasaa ka abuuraysaa waxaa kaloo samayn kartaa waxa la yiraahdo add title tusaale ahaan oo kale inaad title ku dhex dartid oo aad ayagoo section waa chapter oo kale title-na waa cinwaanada chapterka ka koobnaan lahaa oo kale marka waxaa samayn kartaa inaad tusaale ahaan oo kale aad title ku dhex dartid hadda markaad rabtid xaggaas kale tegaysaa ama kan oo kale maxaa leedahay title si hoostiisa u gala meesha hoose kii aad joogtay hoostiisa marka hore nala wadaag sawir baa joognay hoostiisa title baa galay marka title-kaas maxaa ku qoran waxaa leenahay inta hoose waxaan u bixinaa ciwaan marka tusaale ahaan oo kale waxaa leenahay xog dheeri ah waa tusaale ahaan iska qornay macluumaad kale xaggan sii raacnay hadhow haddaan rabno inaan iska dhiligareynana waxaa leenahay delete baa oran tusaale ahaan haddii ay kaa kala hormaraan oo kale hadda su-aalahan waxaa rabtaa inaad su-aashan qaadiyo hooskiisa markaa saas kale u qaadaysa xaggaas tegaysa calaamadda fargeeska marka kusoo baxdo baa dhanka rabti inaad u kala hormarisa geen kartaa hadda tusaale ahaan oo kale kan inaad su-aashan oo kale inaad sectionka ka qaado sectionka ugu dambeeya geeyaa kala la rabaa waa saas kale u jiidaysa waa jiidaysaa ilaa aad sectionka rabtid tagtid markaas waa dhigaysaa marka qaabadeeduna waa saas waxa soo haray sitting intaanu gelin waxaan rabnaa inaan tagno muuqaal ahaan qaabka wax uga bedelnaa farta haddaan rabno inaan bedelo fartaan oo kale haddaan rabno inaan bedelo kalarka midabka background-ka haddaan rabno inaan bedelo ayadana waxaan leenahay wax taganaa headerku waa maxay hadda waxaa la jooga waxa la yiraahdo textiga wuxuu iskugu jiraa header oo ah ciwaanka guud wuxuu ku jiraa questionska su'aalaha headerku waa kan ugu sareeya su'aalahana waa isla garanaysaa su'aalaha dadka lagu weydiiyo textiguna waa maxay waa wax su'aalaha kuwa ka hooseeya qoraalada su'aalaha ka hooseeya kuwa qortay oo la doordooranayo kuwa qofka qori doono qaabka ay noqonayaan marka annaga waxaan leenahay headerka tusaale ahaan oo kale impact baa dooranay farta noocaasi waaweyn baa dooranay sidoo kale questionska ayagana waxaan dooranaynaa tusaale ahaan oo kale miri wither baa dooranay taasoo kale dooranay su'aalaha textigana maxaa dooranaa ayadana textigana waxaan dooranaa tusaale ahaan oo kale taasaa dooran text waka ayadana isbedelay kalarka haddaad doono kalarka rabna in wax ka bedelo kalaradaas marka xaggan ayagana wax ka bedelaysa haddii aad rabtid in aad sawir soo saartid background cover waxaan oran jiray header xagga kore meeshaas kore oo bahalkiisa headerka baa wax raba inaan sawir soo saarno wax ku dhufanaysaa choose sawiradaas hadda mid ka mid ah dooran kartaa haddaa rabtid haddii kalena waxaa leedahay upload baa oranaysaa kadib browse baa oranaysaa kadib sawirka meesha kugu jiro baa kasoo dooranaysaa laptopka hadda aniga desktopka noo yaala sawirkaas soo qaadana saas soo upload garayna kadib marka sawirka soo upload garaysmo waxaan siinayaa crop ama adjust inaan adjust garayno sawirka qaabka ugu fiican oo saar karo waa kan qaabka u rabno u saarana intaas waa saarana sawirka kadib waxaan leenahay dhan sawirka saas noogu saarmaday marka taa ka tagno ka sawirka halkaas noo saaray marka maxaa sameynaysaa sawirka saaranaysid jaamacadda sawir background oo ka samaysan jaamacadda asaas kale u dheer
baa soo qaadanaysaa ama sawir adigu sawir un baa soo qaadanaysaa markaas u baahan tahay aragti inaad ka dhigtay headerka aad saartay qofka markuu saa usoo galo uu sawirkaas arko allahu mustacaan marka waxaa u gudbanaa tan waa preview sida oo arki lahayn markaan dhamaystirnaa isla fiirina marka waxaan rabnaa inaan isla fiirino xaggan settingka tusaale ahaan kan waa marka imtixaanada aa isticmaalaysa oo kale imtixaan aa isticmaalaysa baa tiglasiya kan oo kale waa emailka in email qof kasto emailkiisa maxaa la oran jiray oo dhaatadan buuxiya ina emailkiisa aa collect garaysa oo kale email u soo geliyo sidoo kale qofka in limited response inaad ka dhigtid oo qofku hal mar kaliya ka jawaabi karo tanna waa maxay qofka inuu intuu submit gareeyo inuu gadaal ka edit gareyn karo kale hadduu wax ka khaldo kale inuu edit gareyn karo haddaa u furtid dib u edit gareyn karaa tan oo kale limited waa inaad ka dhigtid qofka hal mar kaliya ka jawaabi karo tan oo kale waa faylaska soo upload gareynaya iyadana waxa ka sameynaysaa wax ka dhigaysaa limited ka access limited ka dhigaysaa ilaa 1 tera soo upload gareyn karaa tan oo kale marka prestige ku dhufatid xaggan oo kale waa maxay xaggan maxaa ku qoraysaa qofku markuu dhameeyo after submission markuu dhameeyo wuxuu usoo bixi lahaa marka maxaa u qoraysaa waa ku mahadsan tahay sida aad uga jawaabtay codsigeena waxaana rajaynaynaa inay nooga soo baxdo jawaab xalisa cilmi baarista aan samaynayno intaas kale ugu qoraysa waxaan leedahay sidoo kale in aad qofka aad la wadaagtid salaam kale emailkiisa aad kula wadaagtid markuu dhammaystiro in xogtii summary ahayd emailkiisa ugu dhacdo kale daarti halkaas aad tigsaynaysaa haddii kalena waxaa leedahay waa ka dhacsan kuwan waa show process bar kuwaasna waxaa meelaha qaybaha kore inaa qofkii uu arki karo iyo waxaas ka caawinaysaa laakiin waa muhiim qaybtan kale iyaduna waa maxay emailada qof dadka inaa default ka dhig yani qofka uu ku khasbanaado in emailkiisa maxaa la oran jiray markasta bila email la-aan uusan xogtan uusan buuxin karin ayada inta badan way fiican tahay tan oo kale waa maxay question default tan waa maxay make the question required default yani su-aasha inuusan qof ka boodi karin required tahay inaad toos yani qofkaa su-aashaas kaga boodi karo camal oo kale ka dhigtay su-aalaha qaarna uu ka shaqeyn qaarna uusan ka tegin marka required baa ka dhigaysaa ayadana email-ladooda kalena waa iskaga baahan tahay marka settingka intaas ugu muhiimsan insha allah in saxan noogu harba rajeynaya waxaa soo hartay preview waa maxay previewgu waa in aad aragtid qaabkii xogta aad diyaarisay qaabka u dhigan tahay ama qaabka qofka kale u arki karo waa kan xogteena waa kan xogta qofka markuu furo saan u arkaya saas u arkaya qofka waa page-kii koowaad oo ahaa sawirkii waa ka head sawirkii waa kuwan wixii kale oo gudaha ku dhex jirtay ayana kaas emailka qofka marka xagga gelinaya tusaale ahaan oo kale emailka qofka xagga gelinaya wuxuu leeyahay negas wuu ku khasbay inuu emailkiisa gasho sidoo kalena su-aalihuu ka jawaabayaa waa kuwan su-aalihuu ka jawaabayaa su-aashii hadda sanadka oo kale xaggaas qof ku dhufanaya sanadku dhashay uu xagga ka dooranaya saas u dooranaya sanadku dhashay jinsigiisa iskeelkii waa kan ayada su-aasha iskeelka ahayd wan ilaa intee in leeg ayaa ku qanacsan tahay marka waa intee waa boqolkii yani 5/5 ama 4/4 oo kale sawirkaaga nala wadaag waa kan sawirkii markii aan dhahnay meesha kusoo upload gareyn waa sawir bas wax kale ma soo upload gareyn karto hadda tusaalahaan oo kale video haddaad rabaan inaad soo upload gareyn wuu diidaya sawir bas ku raa sawirka hadduu ka weyn yahay sawirka hadduu hal MB ka weyn yahay ma yeelay marka insha allah taas waa taa kuwii kale waa kuwan dhowrka xabe laga dooran karay
tan oo kale waa tii aan ka hadlanay drag waxa la dhahaa drag down baa la dhahaa iyadoo tan hal xabo ka dooro maamulada deegaanka Soomaalida midkee ayaa ugu waxbarasho fiican salaana kan hal xabo ka dooro soo jeed juus uu leeyahay hal xabo ka dooro markaan wax ka dooro salaana kala hadda Somaliland baa dooranay halana next su'aalihi kale waa sectionkii kale waa maxay sectionkii kale waa kan muxuu ku dhahay 1 2 3 waa ka dooranaysa marka waa maxay salaana kale heerkee ayaad ku qanacsan tahay salaana kale waa 5 doorto isla ma dooran karo labada ama mid isla ma dooran hal xabo ama hal qiyaas sameeya mid kasta hal qiyaas oo ka sameeya kuwii kale oo ahayd check box kan ayaan waa kan aan ku arki doonaa waa kan salaana kale inta wax baranaysay heerarka inta ku jirtay sidee dadkan ku caawiyo intee dadkan kamid ah baa ku caawisay salaana kale waxa leenahay dugsiga marka dhiganay dawladda waa caawisay bulshada deegaanka ma caawin iskuulka ama jaamacadda marka dhiganayna waa caawi maamulka deegaankuna waa caawi sidoo kale kan baa caawi kan ma caawin kan baa caawi kan baa ma caawin hada doonto xal hal mid kaliya baa caawi tan waa taas waxa soo hartay sawirkii waa kan asagoo waa ka sawir qofka saas u arkaya xog dheeri ah waa sectionkaas marka sawirkii waa kaas wuxuu leeyahay su'aashii waa taas marka su'aashii waa hoosta la sawirka sare si fiican u fiir waxaana ka bixisa aragtidaada marka sawirkaas tusaale ahaan oo kale tusaale u soo qaadanay ducada qumad sidee u aragtaa ka xaleenay waxaan u aragnaa in uu yahay wax aad u fiican qalanaysa video qof markuu daawado inuu ka bixiyo asna sidoo kale fikirkiisa click buu siinaya video saas kale ugu soo baxaya video saas ugu soo baxaya video markuu soo baxo asna ra'yigiisa xaggaas ku dhiibanaya wax aad loogu farxo bas markuu dhameeyo maxaan rahnay submit maxaa u soo baxay qoraalkii aan qoran ugu dambeeyay waa ku mahadsan tahay sida aad uga jawaabtay codsigeena waxaan rajaynaynaa in uu nooga soo baxo jawaab fiican marka insha Allah intaana adaa qorqorsan kara ciwaankii research-kana waa kaas xaggaas noogu qoran oo baxsigeena ciwaankiisina waa kaas marka insha Allah waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideysateen aad baa mahadsantihiin casharkeena ama videogeena intaas ku yahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.